سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، درسيغان ولا له قونديين إنه عوضحه الإسلام منصور لا محالة له. إسلام هو قولي سنية مرنكم تشيرو إن لو عمل فله oo sidii uu guulaysan lahaa laga shaqeeyaana waa waajib diini ah. cinwaanku intaasuu tilmaamaya. dunida waxaan ognahay bini aadamku waa noolaha inta badan ka fakara mustaqbalka maxay noqon. waa noolaha u khatida ee ku talagala mustaqbalku wuxuu noqon doono inuu sawiri karo. إلهنا سبحانه وتعالى قرآن كوحكت المام يا مستقبل كحقيقة سين يسوون وجيهاي. قل لا يعلم الغيب من في السماء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إلهي وحلي سبحانه وتعالى مأوغا عرقي الدل وحشوغا غيب كمأوغا ألمو يعني سبحانه وتعالى. حقيقة هن إلهي ينبوق لكن بني آدم قوة الصادالية سقو ساداشي سقو صلينية تقتدي هراء ما تاريخ دي هراء يسيدي وحهان شرين سقو صلينية هذا ظروف تتاقن السيدة أي تهي أيو مركا كالصادالية مستقبل كنا السيدو كان دونه dadka wax saadaaliya marka dadna waa dad khibro u leh oo daraasaad badan ama cilmi baadhis badan intay sameeyaan mustaqbalku uu muuqdo ilaa xaddin ma sawiran kara sida wax noqon karaan. dadka badhna taariikh hore iyo waxba toona ma eegaane waaqaca marka ama laxdada lagu nool yahay unbaa intay u muuqatay moodaan inay dunidu madoobaatay ومشاكل كامركا هستيا وحاوم با انتو كبطو ايوم بيسده هذا الدنيا وحبا اسبدلي ما يعني صوت هل كان لقاري هل كان لقاري نوع من اليأس ايا كدعا مستقبل كاسي ايجستيسا مسلمين تو اقويهم كود واباريان وحبدن باني ايجيان ويفتيمينيان عكسي جيدنا قالدنا واباريان بحوث علمية هي دراسات أكاديمية علم بارسية نبأة خبرات نبأة ومال إيه مسكح بقى يجيلين أيام بيكون بارانو إيجان مستقبل كمسلم كصور نغنية حنونكر راقوية هنبدأ إليه وحي الرميسانيا لا محالة إنه إسلام كصور نغنية سبب بدن تردد لكن dee laysma dhiiba bay rumaysan yihiin ma la dibdhigi karaa ma 20 sano ku soo noqon ma 50 ma 100 ma 200 haddaynu 200 gaadhsiin karna dee muddaynu haysanaa weeyaan. marka iyagu baxsiga waxay u samaynayaan inay ogaadaan niqaada dacfigaaga iyo niqaab meelaha xooggaagu ku jiro iyo meelaha dacfigaagu ku jiro. سأوجد عدة عدوها هي وحي اسكو دايسا بوينتس كاما نقطتها ضعف كانا يني بونبوني سو حوشي بلاري سو تربضي سو ميلها قوة نسي دي يحدد لهيدا ويرين لهيدا نيتيجابيس. مسلم كا وحلار كياه بري يقلبتونا مربان reer galbeed islaamnimo cadownimo taariikhi oo hore ka soo dhaxayso waxay rabaan inay carqaladeeyaan intay carqaladeyn karaan. bariga soo socdaana kama roona oo China iyo groupkiis kuwanaba ahlu kitaab labada ah kuwanaba waxyaabaha qaarkood inala wadaaga laakiin China iyo gruubadooduna waa laga yaabaa duruufaadka qaarkood masaalixdu inay soo dhacdo لكن كمبدأ هنوي كفوقي
caalamulislaami dadka xukumaana labadaaba inay ka sii fog yihiin baaba laga yaabaa oo iyaguna dantooda inay u arkayaan islaamnimadaasi inaanay ku soo noqonin waayo ninka siyaasiga ahi waxa maslaxadiisa ugu jirta lagama fujiyo had iyo goor maslaxad malaa wuxuu arkayaa sida tan inuu dadka gacan bira ku hayn karo qofka caadiga ahi markuu eego wadciga muslimiintu ay ku jiraan oo ah dhaqaalahoodu inuu dambeeyo siyaasadoodu inuu dambeeyo maalku in laga maal badan yahay hubka in laga hub badan yahay niyadjab badan baa dadka qaar ku abuurma laakiin dhan kale marka la eego waa ummadda ugu da'yaree dunida ku nool that means Soomaali maanta haddaynu eegno waxa laga yaabaa boqolkiiba 70 inay 30 jir ka yarta that means waa xoog soo socda masaajidka imika haddaan sidaa u eego waa cirro laba qof iyo laba laga yaabaa inaan arko macnaheedu waxa weeyaan waa ummad dhalinyaro ah Soomaaliya qurana maahe waa caalamulislaam oo dhan baa noocaasiya cagsiga haddaynu galbeed iyo bariba eegno waa dawlado gabgaboobay iyo dad gabgaboobay iyo maskax gabowday da'yartoodu da'weyntaa ka badan inta benshanka gelaysa ayaa ka badan inta soo gelaysa shaqada that's why in badan qaxoonti u qaataan qaxoontigani waxa la rabaa in lagu buuxiyo meeshii dadkii shaqada gelayay waayo dadka ka sii baxaya benshanka noqonaya ka badan da'yarta shaqada soo gelaysa idan haddii xagga bini aadamka laga eego caalamulislaami waa dhalinyaro waa dad xoogganoo mustaqbal loo soo socda haddii laga eego dhulkay degan yihiin waa dhulka dunidaba isku xidha cidda dhulkaa xukuntaa dunida xukunta waxay yidhahdaan dunidu badaha dunida isku xidha cidda xukunta 5-6 kanaalee dunida isku xidha mid mooyaane inta kale muslim buu ku yaallaa Panama Canal oo labada Maraykan dhexdooda ah ayuun baan gacanta muslimka ku jirin ama inta kale waa Bab al-Mandab waa Canal Suez waa Jabal al-Tariq waa Bosfor ama marma labada uu leeyahay Turkigu waa Hormuz kan Iran iyo Oman iyo inta u dhaxaysa waxa kanaal dunida isku xidha gacanta muslimku ku jira waa wasad ad-dunya Maraykan intaasuu xoog ku joogaa si uu maamuli kariyo Ingiriis Turkiga intaasay heshiis kula galeen 100 sannadood khilaafadii Uthmaaniga markii la ridayay heshiisyadii laga galay waxa ka mid ah 100 sano ee soo socda kanaaladaas inaanu iyagu lahayn free in lagu mari karo 2023 ayay ku dhan yihiin 100 sannadood 1923 ayuu ahaa heshiisku 100 sannadood waa 23 markay gaadho ayuu dhamaanaya wixii ka dambeeyay gacanta Turkiga ku wareegaya gacanta Turkiga hadduu ku wareego Russia dunida meel ay kala xidhiidha male Turkiga inay marto mooyaane biyo kululba male iyo wax xagga ka xigo oo dhame si kale haddaynu u tilmaamno waxay degan yihiin meel Ilaahay dhigay energy-ga dunida shidaalka dunidana 70-80 wax ku dhow waxa Ilaahay hoos dhigay inta muslimku dego ma Kazakhstan iyo meelaha laga soo bilaabo ilaa iyo inta muslimku dego ayaa shidaalka energy-ga dunida hoos yaala caalamul islaami wuxuu ka mid yahay wadannada aan kham maada kham loo soo dhoofinin ee maadada khamka ee wadannadooda taala wax kastaba inay helayaan anything loo baahan yahay dhulkoodu inuu leeyahay oo tasniic ama industry-gu u baahan yahay haddii waddanku dhalinyaro uu yahay haddii mowqicu ku dhaca uu yahay mowqaca dunida maamula haddii energy-ga dunidu gacantooda ku jiro hadday maadada khamka ay helayaan iyagu haystaan waxa ka dhiman oo kaliya ciddii isku hagaajin lahayd الحنكة السياسية قائد كيلها صاحب الرسالة متكمدة قرى أقويها كرر البيت كوحوليه
waxa qura nimankan buu leeyahay waa inaynu xoog isaga ilaalinaa waayo waxa qura u dhimani waa salaaxdiin cusub oo soo baxa buu leeyahay nin risaalana sita xanaka siyaasiyana leh mabaadi'na rumaysan en maamulna garan kara iyo si dad loo hogaamiyo caalamul islaami intaasaa ka dhiman risaalo daa'ima bay ay tilmaamayaan oo aan marnaba isbedelina way haystaan dadka kale kutubtoodii way qaldantay towraaddii rasmiga ahayd ma taallo injiilkii rasmiga ahaa ma yaallo bale maanta waxay maraysaa xataa afka markay noqoto dowlado waaweyn oo dunida ka mida baa tijaabinaya hadda arkiifyadooda rasmiga in af carabi lagu qoro waayo af carabigu waa afka qura aan isbedelin af carabigu 1200 sannadood buu sidii siiyey yani ninka luqa carbeed maanta bartay ashcaari aljaahiliya iyadoo loo fasirin buu akhrinaya waa carabiga habuu ku qorayay kitaabka quraanka ah ee carabiga habuu ku qorayay laakiin ingiriis oo luqadiisu dunida ay ugu xoog badantay Shakespeare wuxuu qoray in loo tarjumo modern Englishka mooyaane in yar ba akhriyi karta waa 700 sannadood ka hor 700 sannadood ka hor wixii la qoray dee af ingiriisi ba 600 sannadood meelahaas u jira ee ka horeeyay Germanic languages ku ka tirsanaa yani Latin language buu ahaa waxaan uga dan leeyahay risaaladooduna waa kayd yaallo sidiisii u yaallo cid ku dhaqantoon u baahan aan marnaba taxriif gelin aan marnaba lumin ilaahayna uu quraankiisa ku sheegay inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahaafiduun ana soo dajiyay baa ilaahay ilaana ilaalinaya ilaahay wuxuu u ilaaliyay xataa afku ku qoray in rabbi dhowro culamadii muslimiinta hore buxuuftay samaysay idan luqada carbeed waa tii nabi maxamed ku hadli jiray calayhi salaatu wasalaam waa tii abu jahl ku hadli jiray iyo kuwii ka horeeyay waa tii cantara uu ku gabiyay waa tii maxay imraa'ul qays uu gabayada ku tirinayay gabayga imraa'ul qays baa imika inta la akhriyo caadi loo fasiraya waan ishkaal ku jirin si caadi loo garanaya wixii sababi lahaa waxay leeyihiin dadka kale markaa waxay haystaan xadaaro qadiima waa mar labaad bay leeyihiin taariikh bay leeyihiin umamku taariikhda kama soo hadhaan haddaad taariikh hore leedahay waad hibanaysaa inaad soo noolayn karto haddaanad se taariikh lahayna daba go-an tahay ma jiro aabbayaal hore oo dib ugu noqotaa islaamku taariikh buu leeyahay tilmaamaysaa dunida tan dhowr boqoloo sannadood ama 1000 sannadood inuu keligii hogaaminayay oo dunida number 1 u ahaa hadday cilmi tahay hadday jaamacad tahay hadday dhaqaale tahay hadday everything wax kastoo la eego iyagu ahaayeen ibn david waxaan tilmaamayay clips by waa nin gaaleed oo qoraayahana oo taariikh ilmi ka warama wuxuu lahaa quruun alwusta 130 kii caalime dunida joogay 120 baa dunida muslimka ka yimid buu leeyahay adduunka kale oo dhami 10 buu lahaa yurub oo dhami 4 bay lahayd tamacnaheedu waxa weeyaan waa dad taariikh iyo xadaaro leh soo jireena oo sababi karta inay dib u soo nooleeyaan intaa waxaan ku daraynaa haddaad taariikhda daraasayso ilaahay wuxuu leeyahay watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas watilka alayaam nudaawiluhaa bayna annaas bini aadamka ilaahay waa u kala bedbedelayaa nolosha oo ma jirto ummad weligeed jab loo qoray ummad weligeed guul u qorantayna ma jirto laakiin aadanuhu waa qori isu dhiib iyo calan isu dhiibkaasoo kolba qolo xoog badata bal haddaad taariikhdii nebi maxamed ku noqoto calayhi salaatu wasalaam iyo islaamka mar buu nebi maxamed keli ahaa dunidoo dhammina ka soo horjeedo qof qura qiyaas oo adduunkoo dhammi ka soo horjeedo mar buu la'aa cid hoysa man yu'wini wariya ay hoynaya mar buu lahaa oo aan ilaahay kelmadiisa sheega oo taarikhyahanada qaarkood tilmaamaan 15 qabiil inuu isu soo bandhigo 15 kuma diideen ilaahay faraj wuxuu uga furay dhalinyaro ansaar inay aqbasho qaadato inay yimaadaan oo islaamka rumeeyaan oo bay'a al-aqaba lula iyo bay'a al-aqaba thaniya la galaan oo dabeetana yidhaahdaan annaga hiliyo hooba ku siinayna noo kaalay
oo carab oo dhan wuxuu ka waayay dhallinyarada yaruu ka helay uu xoogaystay oo dagaalkii koowaad ee lagu soo qaaday beder uu guulaystay kii labaad buu haddana jabay oo laga xoog batay kii ku xigay baa khandaqoo haddana uu goolaystay kii ku xigay buu haddana marna jabay marna xunayn yani taariikhda bini aadamku laakiin ilaahay wuxuu leeyay waalcaaqibatu lilmuttaqiin ciribta dambe waxaa iska leh kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada marka waxaan leenahay kow adduunka kani ilaahay buu gacantiisa horta marka hore ku jiraa taa rumayso maanta dunida reer galbeed baa hogaamiya cid dambe oo eray ka daba tidhaahdaa ma jirto laakiin hadda wax 30 sano ka hor dunida dawlado waaweyn oo kale shuuci la yidhaahdo iyana qaybtooda ka taliya jiray 2 sano gudahood baa shuuciyad bal dunida la waayay 2 sano gudahood ayay may noqdeen sidii tusbax la furay daateen dawladba dawlad ka dambaysa ay dhacday reer galbeed maanta uu ogyahay inuu daalay dhallinyaradoodii baa lunsan akhlaaqiyaadkii ka lumeen dadkoodii xumxumaa baa kor soo maraya dhaqaalahoodii baa sii burburaya dhashoodii baa sii yaraanaysa waddannada qaarkood 1.25 bay marayaan that means boqolka qoys labada boqol qof ka kooban 100 nin iyo 100 gabdhoodii dadkii bedeli lahaa ma dhalaan 125 qof bay dhalaan that means tirada waddankaas sii yaraanaysa Soomaaliya 30 sano ka hor intay leekay dadku dee nin walba awowga 30 sano ka hor awowga intuu dhalay misay ahayd maanta say misuuyi waxaad garan kartaa Soomaaliyiinta intay badatay waa intaa waxa laga yaabaa awowgay 30 sano ka hor ama 40 sano ka hor haddaan tiriyo wax gacanta lagu tiriyo inuu ahaa maantana waxaa laga yaabaa inay boqolaaliyiin nin walba Soomaaliyeedna waa sidaa tan yani intaasoo jeer baa laba laamay iyana waxaa laga yaabaa inay tiradu intii awowgii ahaa ka yaraatay 40 sano ka hor awowgii intii uu dhalay ku tirsanaysay maanta inta ku tirsatay inay ka sii yartay idan waa dad gaboobay oo tiradoodu sii yaraatay oo dhalintoodu sii baaba'ayso oo dhaqaale burburna ku socdo oo xataa unitigoodii uu hadda bilaabmay inuu dib u gilgilmo yurub oo tan sii kala googo'aysa ingiriis ka baxay tii kale weli waa isku oodan tahay dee ilaahay balaayooyin kalaa buu keeno corona iyo wax kala soo baxay dimuqraadiyaddii dunida loogu bushaaraynaya waa taale nin ictiraafi maayo ee tii afrikaanko kale imika waa uun ka askari yar tahay sidii baa laysu hayaa waxba kama jiraan anaa madaxweynaha nin la soo taagan yahay systemku ma aha system fudud oo horta dee habeen iyo maalin dumaya maaha saa maaha laakiin waxaynu tilmaamaynaa naqaada dacfigii inay bilaabmeen inay muuqdaan meelihii liidashadu ka jiray way soo biirayaan valueskoodii ay yaqaaneen qiyamkii ay hayeen wuu sii lumayaa xataa qiyamkii dowladnimo ay lahaayeen ayaa sii lumaya dee inay iyagu lumaan macnaheedu maaha inaad adigu xoogaysatay haddaad adna ka sii liidato dee wasal halkii u cadow baa jabay adigu maad guulaysande adoo haddaad wax noqotaad guulaysanaysa haddaba waxaan leenahay kow horta waa inaynu rumaynaa ilaahay in dunidu gacantiisa ku jirto caqiidadaasi waa inaanay dadka ka lumin qul illahuma maalika almulk tu'ti almulka man tashaa ilaahu dunidan adaa maamula cidi kulama maamusho adaa mulkiga siiya ciddaad doonto watanzicu almulka miman tashaa adaa ka siiba baa ilaahay qur-aanku tilmaamaya tanzic adaa ka siiba boqortooyada ciddaad doonto watucizu man tashaa watudillu man tashaa adaa ilaahay ou casiis ka dhigo oo nooleeyo sharfa ciddaad doonto ciddaad doontana adaa duleeya biyadika alkhayr gacantaada aday wax waliba ku jiraan innaka calaa kulli shayin qadiir wax walbana adaa awooda idan biyadihi alamru kulluh ilaahay gacantiisa ayaa noloshoo dhammi ku jirtaa waxaynu leenahay marka la qiimeynayo mustaqbalka
hadday taariikh noqoto taariikh dadkani waa leeyahay uu hiigsado hadday noqoto waaqaca maanta yaalla waxaan leenahay waa waaqac sheegaya ummad dhallinyaro ah oo waddankii ilaahay dunida ka doortay degan oo kanaaliskii dunidao dhan iyaga gacantooda uu ku jiro oo dhaqaaliya wixii waddanku uu u baahanaa ilaahay meeshooda ku sameeyo ku abuuray oo u baahan isku habayn damba uun yacni waxii ummadi ay kor ugu noqon lahayd oo dhamme agtooda waa taallaa intaa waxaa dheer mubashiraadka xagga rabbi ka yimi oo nusuus qur'aanah iyo xadiidah oo ilaahay soo dejiyey oo tilmaamaya inay ummadda tani dib u guulaysan doonto iyana waa taallaa إلهي بقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إلهي وحوي يبوهي كو إيمانك لغيه لا إنغمتك عملك صوبنا سمية يعني طريق العزة الراعة وضد اللي يقول لي بانا ينا الراعة كما هو الرب إن إلهي ما أورنين كوي الرميس كسي حدا كربان يلي يا إلهي ما أورنين نوموا ولا تستيقظوا يو عراقي إن قبيايا عراقيا وحكيا أبي مسلم كما تسيدوا ياهي واهوري ما سو قبي تري وليي سيحدوها توسينا انت هردون بقولي ستبويلي يعني وحو صورة يا حال كأنه فما فاز إلا النوم بويلي ما قولي استاك هو هردون بوياني إذا نن هردان ما قولي استو نكي سيحدا سعيد دي بدالي بيسو على ذو هذا لكن إلهي وحلي سبحانه وتعالى كو إيمان لقاها لي عمل صالحة كو عقيده إيا إني مبادئ كل نقبان الراعان لقاها له كوا إلهي وحوب بلن قاضي لا يستخلفنهم في الأرض لام ينون التوكيد بإلهي كواتكي كوا إلهي سبحانه وتعالى نلك خلافة دي سواودي بيا واودي بيا سيدي كوية كهرية بلوغودي بي يعني جدك نولا شهدات راعضه إلهي سبحانه وتعالى ويد النولين يبال لي ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلهي سبحانه وتعالى ومكان سينيا وقعنتو قالينا يا الدين تودو رالي ونوري ما أنت وحلقيا ما دريد قيبا بدارو كمدا مسلمان هيدتكو إني كما حشودان ويسير أربع لقودي هذا أفكا كتير هذا مسلمان أربع لقودي هذا تيروريست نكانيو الإسلام بوشيكتي لكن إلهي وحوب بلن قاضي هدي جدك الراعان ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلهي وما كان سيني دينتو درالي ونقضي ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بقى هذا الدبداد إلهي وحقوق بدل يا نبت قليو دي عالم الإسلام ما أنت سياسيين تسيا وحقرت كيسيا قويان كيسين بدن كمدي أي بقى يا نسلي هذا وحات الأهدان أرما قال دي سود وشاه أرما الله يدين قبصها أرما لقو حرها أرما لقاه هري مادا ونمو لبا مثل حديث كده يديي قال دار اللي قال انتو ده إلهي وحلي سبحانه وتعالى ربي ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لكن وحري محيك حلي يعبدونني لا يشركون بي شيئا بإلهي وإن يعني يعبدان وأنا عندنا يقول شريكي لين حالات ده هدي قادان وحنواهليا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون عندي قالوا دانا فاسق بيا وفاسق ما إلهي لي قرقارك الله لي معي آياتك لا إلهي وحلي سوى الرب الربين وينوت المامود دونيدان يسوى كتليو يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم قرب ربما إلهي لي إلهي إفكي سيني أفكو دقو دميان كورا أنك سير هذا عبعاد أفوف والدمي وأنه ولا نصوى معها ويعدادوا إنه حق وينتهى يوم بن آدم كوتا كلمة رميصنت مركان إنه أنا أفكي سيكود منكرين رب السماوات والأرض النور كيس عنا أفكم الد منكرت
إلهي باوحو ليه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره إلهي نواد ديدي تاسي إنه النور كيسا ما يسترمو يري دين تان إلهي وحب الله قاضي إلى قيام الساعة مركز دادك اللين دون وقت كله وين يدو شوقي دونتو سأو قيدنا أني صورة قلة هين إن للدمية ولو كره الكافرون بإلهي حتى كوا قالت هبن عباداني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون في سورة التوبة هي في سورة الصف بإلهي وكت البامية إلهي وك الرسول صادري وهنونك صادري الدين حقا ليظهره على الدين كله دين أردن نكوكري له ومبشرات مركه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا في سورة الفتح يعني سدح آيات القرآن مسألة سكسا أرورت وحلنا هاي أحاديث تصاررت ويتربضت ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه كتاب كيسان لدى سلسلة الأحاديث الصحيحة وحكم بالأوضة أحاديث مبشراتك أول حديث يكوي يلبا يصدح وحكم بالأبي أحاديث المسلمين تدير قالين يسيب بشارة النبي محمد وقلت جاي أيكم بالأبي أو كم دي حديثك نبي قولي عليه الصلاة والسلام إمام مسلم صاصاري إن الله الزوالي إلهي وحوئي سمي أو أروري زوالي الأرض القرآن بالله كوبي فرأيت مشارقها ومغاربها كأنما ده تي في لقت الصيوكالي القرآن أي الله يسوع أروري النبي قولي عليه الصلاة والسلام وحنا ركي بري جدي قلبيت كذا با وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أمد إذنه ملك جدي ما ملك جدي وحو قارد دونا أنت اللي تسيب النبي قولي عليه الصلاة والسلام يعني وحصاص صعتو النبي قلت المامية وقت عالم كوردن إسلام كتاليو عالم كوردن إسلام كتاليو دتك بدبا وحي وفكريان ورمو مسلم كو حوق بدن دونا عينك وردتك قلوبتooda in la furtaaba ka fiican in dhulkooda la furto dadka qulubtooda in la furto ayaa ka qurux badan maxay in dhulkooda la furto isagoo qofku dhulkiisa degan baa diinta la gaarsiin karaa islaamnimada uu qaadan karaa dad muslima iyo dawlad islaamiya dad khayr jecel ay noqon karaan saawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay wa u'tita al-kanzayn al-ahmar wal-abyad waqtiga madiina lagu hortaagnaa dabeetana wuxuu leeyahay waxa la siiyay kanziga daartii casayd iyo daartii cadaydba labadii dawladood ee dunida markaa ka talin jiray midna guriga cad buu lahaa midna guriga cas buu lahaa deemikaba raashiyaankuna guriga cas buu lahaa maraykankuna guriga cad buu lahaa beershiya iyo roomaniskuna qolana guri cad bay lahayd qolana guri cas bay lahayd dabeetana nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wa u'tiitu al-kanzayn al-ahmar wal-abyad هدي تهي ذهب يفضنا ولا يسيبوا نبوة المامية وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا نبي عليه الصلاة والسلام حلي إلهي وحن ويديست وما الضيلة إن أنا إلهي سبحانه وتعالى كو اتحام أبار لما يسه يعدو كحوق بطه ودمانتود قبصده إلهنا سبحانه وتعالى وحوت المام هدان وحكم كيغا لما سوعليو ومدادا أبار لما يسكو قبان مايو عدو انتو كحوق بطر دمانتود قبطانا كو قبان مايو لكن دوني دور دم حتى هدا يسوكو مادو ما تشبين كريان لكن إيغا بڑبا بڑكا كلا قبصان دونان
وبلايدو ساسay ku dhici doontaa caalam islaam wadan kasto la gumaysto qaar kale oo muslimiin baa gaalada dabada kaga jira iyagun baa jabkooda ka mas'uula sida nabigu alayhi salatu wasalaam uu tilmaamayo laakiin ahadith badan baa waxay tilmaamaysaa xadiidka ibn Hibbaan la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar diintani inay gaari doonto inta waa ka bariyo habeenna ka dumo dunida oo dhan habeen waa gaadhaa maalinna waa gaadhaa diintani way gaadhaysaa buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam guri dunida ka jira ma jiro ilaa diintani way gali doontaa ama iyadoo bi'izi aziizin bay ku gali ama bidulli daliilin islaamnimada xoog badan bay ku gali oo iyana dulaysayiin ama dadku iyaga islaamka qaadan ama waa la qabsan waxa uu tilmaamayaa nabigu alayhi salaatu wasalaam saxaabada uu sheegay buu yiri labada magaalo in la furanayo sheeg waa Roma magaalada caasimadda Talyaaniga iyo Constantine waa caasimadan hadda Turkiga laga maamulo laakiin marka labadaba midna waxay ahayd markaska diineed ee reer galbeedka midna waxay ahayd markaska siyaasadeed ee reer galbeedka Constantine waxa gacanta ku haya dawladda Byzantiya oo ah dawladdii Romanska weyneed wixii ka sii haray ta kalena waa meesha Vaticanku deganaayo diinahan xadiidkana wuxuu tilmaamayaa labadaba muslimka gacantooda ay soo gali doonaan dabeetana waxay weydiiyeen saxaabigii sheegay Abdullah ibn Umar ibn al-Aas labada teeba la horfuran doona sanduuq yaroo meel dhigtay buu sanduuqa ay keena waa loo keeno uu furay dabeetana qoraal buu ka soo saaray markaasuu qoraalkii akhriyo wuxuu leeyahay anagoo nabiga la fadhina alayhi salaatu wasalaam oo xadiidka ka qorayna ayaa nabiga su'aashan la weydiiyay labada magaalo teeba la horfuranaya dabeetana nabigu wuxuu nagu yiri Constantine baa la horfuranaya ama madiinatu Hiraql tuftaxu awala magaalada Heracles ninkii la oran jiray magaaladiisa la horfuranaya nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam waqtigu sheegay waqtigaas laakiin goorma la furtay waxa la furtay 800 sanadood ku dhawaad nabi Muhammad gadaashi nabigu sii sheego la furanaya laakiin waqtigu ma sheegin dadka saxaabadii way isku dayday oo suurtoob weyday Abu Ayyub al-Ansari iyo magaalada dacalkeedu ku aasay oo suurtoob weyday ciidamo muslimiin oo ka dambeeyay boqor waliba nabigu wuu amaanay nimanka halka furan doona way isku dayay may suurta galin qarnigii 15aad ee miilaadiga dabayaaqadiisii Spain markay dumaysay xaga kalena Constantinople la furanay Spain 1492 meelaha saydan aakhir Madiina laga soo saaray muslimiinta xaga kalena waqti ku beegan bay furteen ومركي دولة المسلمين دينا قلبيت سود ميسي دولة المسلمين دينا عباري بسيح وجيسين يسوسي سعودي ملا هجرية والسداد بقول يا ديرادنا يهيد بفليها وقت ياسي هدي تالا فرتين نبي محمد عليه الصلاة والسلام دبدي السداد بقول سنة كذب ولبا علماء حديث صحيح مسلمنا وحي الماميان مر لبعضنا ين قسطنطينية لفران دولة لكن مرك لبعض تكبير لغو فران دونان حبد بالوريد الدوري لا إله إلا الله يا الله أكبر لغو فران دونه ملا هم دوا مركان علمانيين تانية بلية باس كان يدبوا قبصدين دون ملا ضد تكبير سري وما دبوا قبصدين دونا فليا روما سيولي لما فران رومي ولي وحي كجرتا محي قعنتي غير قلباتك لكن حديث كان وحو شيغي رومنا ان اسلام غاادي دونو اسلامي دونت رومنا ان نقون دونتا maxay magaala muslim buu nabigu sheegay alayhi salaatu wasalaam waxa nabigu xadiis kale ku tilmaamaya nabinimadu intii alla doonabay joogi doontaa de nabi maxamed nabi ka dambeeyay ma jirin intii uu nabigu noolaa un bay joogaysa dabeetana ilaahay baa rafcin doona waxa iman doonta khilaafa ama maamul ala minhaaj an-nubuwah طريقي النبي محمد هيسته أي إيمان دونا إسنا أنت الله دونا أبو شوقي دونا دبتنا والله رفعين دونا أبو نبغوري وحكوا حق دونا أبو نبغوري
boqorro adag mulkan caadan isna intii alla qadaraa buu joogi doonaa waa boqorradii muslimiinta ee waxna qaldayay waxna saxayay kadib baa ilaahay rafcin doonaa waxaa ku xigi doona buu nebigu yidhi mulkan jabariya boqorro dictator ah dee mala waa inta maanta joogtay iyo wixii la nooca kuwo dadka nafta isugu keenaya ayaa ku xigi doona buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyana mudday joogi doonaan buu nebigu yidhi uma yarfacuha ilaahay baa rafcin doona kuwaana haddana uma takunu khilaafatun calaa minhaaji nubuwa waxaa soo noqon doonta buu nebigu leeyahay khilaafo mabda'ii nebi maxamed ku socota idan waa inoo dhiman tahay markaa mar dambe waa soo noqonaysaa uma sakat nebigu halkaa markuu marinayo aamusay maxaa ka dambayn doona ilaahay baa og wixii ka dambayn doona nebigu calayhi salaatu wasalaam kama warramin intay iyadu sii socon doontaa kama warramin waxaan uga dan leeyahay muslimku wuu soo noqon doonaa waa hubanti hadday dhashaa tahay wuu soo noqon oo 19 century ama 19 something 20 centurieska bilowgeedii qarnigii 20aad bilowgeedii ingiriisku ilaa 50 milyan oo dhadhow buu ahaa 60 milyan waxaa cagaynaya masarna 5 milyan bay ahayd maanta masar waa 100 milyan ingiriiskuna weli waa 60kii alqarni dabadeed waa 60kii masarna waxay maraysaa intaa mowqaca istaraatiijiga ee ah almiyaahi daafi ah biyaha diiran ee dunida oo dhami gacantoodu ku jira mawaaridda khaamka ah ee hadday dhallinyaro tahay iyo hadday energy tahay iyo hadday dhulbeereed tahayba gacantoodu ku jira taariikhdaasi la yaqaane macruufkaa way leeyihiin kam iyo kayfba ama quantity iyo qualityba waa dad soo socda waxay leenahay muslimku wuu soo noqonayaa waana laa maxaala inuu dib u soo noqdo laakiin in la soo noqdo waxaa ka horeeya waa dhab faama zabadu fayadhabu jufaa'an waama maa yanfacu nnaas fayamkutu fi lardi baa ilaahay yidhi xoorka iyo daad xoortu waa tegaya waxa dadka anfacayana waa hadhaya in alarda lilahi yuuriuhaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulka isagaa leh oo dhaxal siinaya addoomihiisa cidduu doono wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramay yahuud oo la gumaystay oo lagu xukumayba inaanay rag dhalin oo sidaa loo galay ayaa ilaahay yidhi waxaan doonay inaan iyaga dhulka makansiiyo fircoon iyo intiisiiba inta ilaahay halaagay baa maxay yahuud dowladnimadeeda ay timi waxaan leenahay islaamku wuu soo noqonayaa laakiin wuu soo noqonayaa macnaheedu maaha intaynu iska fadhfadhino oo isku akhrino niyaddan idhaahno qur-aankay ku taalla iyo xadiidkay ku taalla ayaa islaamku iska soo noqonayaa oo dunida gaaladuna waa dumi doontaa insha allahu inana waa ka boodi doonaa warkaasi waxba kama jiraan waxa wax ka jiraan haddii la shaqeeyo unbaa wax soo noqonaya intaynu hurudnaa wakhtigu wuu sii dheeraan intaynu baraarugsanee wax qabanaynana wakhtigu wuu soo koobi iyadoo ilaahay qadartiisa ay ku xidhantay saxaabadu maxay lahaayeen markay nebiga la shaqaynayeen lain qacadnaa wannabiyu yacmalu ladaaka mina alcamalu lmudallalu haddaynu fadhiisanna buu yidhaahdeen isagoo nebi moxamed shaqaynayo kaasi waa shaqo baadila oo aynu wax yacnii camal lunsano aynu samaynay weeyaan ilaahay nasrigiisaa noo imanaya dabeetana waa fadhfadhiyaynaa waxba kama jiraan ilaahay wuxuu leeyay waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana jidkayga kuwa u dadaala aayaddu waa maki qabla aljihaad bay soo degtay waaladiina jaahaduu fiina
kuwa juhdigooda iyo dadaalkooda ku bixiya ilaahay dartii ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala dariiqa saxa baan ku hanuuninaynaa waaladiina ihtadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum kuwa hanuuna hanuun baan u kordhinayaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala cadow baa jira iyo dad baa islaamnimada ka soo horjeeda oo ma nebi meel cidlaa yimi baa jiray ambiyadoo dhammi ilaahay wuxuu ku tilmaamaya qur-aanka wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin baa ilahay yidhi nebi kasta kuwa mujrimiin oo col u ah baanu ayaa la joogay baa ilaahay tilmaamaya hadday cidi meel cidlaa ka soo guulaysanayso dee ambiyada ka soo guulaysan lahayd noloshu isriixaasay ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض نلشو سريح حسي كسعته سيدا أوجد وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولتصغى إليه أفئدة الذين إلهي وحينات المامية أنبيضا إني كسهر جدًا كوا علوا شيطان ماذا إنسجية جن كبا إلهي جن تربى ضبا كسهر جدًا النبي هذا kuwa insiyo yara shayaadiin oo kala ka soo horjeeday oo mabaadiida qaldan faafinayay waxaan leenahay markaa mabda'i raggiisu qaadana wuu guulaystaa rabbina wuxuu yidhi waa u gargaarayaa mabda'ii dadkiisu seexdaana waa seexdaa cadowga xoog badnidiisa waxba kuma xidhna laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad baa ilaahay yay idin baqa gelinin يأيدين يكوك تسومنا قال هذا الدنيا الركرجة يسكر ركرجة يعني يوحوا كواستا ومتاع قليل بإلهي لكن قوستنا ما شرته هو الذي ينزل الغيث من بعد ما غنطوا وينشر رحمته إلهي سجى الرب كي أنا حريست سودة يدتكم بركو قوستا كذب سيدا أوجد وحلنا هاي كو عدم اليأس قوستا تشوشية نبي محمد يدو مكلا جوجو والله حوق بطي وصحابتي سهرتي سلوتو ما يو وحبا وقبن كرواية أيو صحابي كم يدو نفتي هيساوي ما سويلي لا الرسول كيسيو ما دي لهي نو بريد ألا تدعو لنا ألا ما دي لهي يقول نو ويديسي نبي عليه الصلاة والسلام وحوش يا غي تاريخ ده بني آدم كسيو صعط إذن كدتك إذن كهر رأيي قار ما أنت إلهي الرسول شيس الروميين لقب طيبون نبي يقولي وأنت قد لقول ردي مشار هالك لقى صاري والله والله كلا شاحي إلهي ما كن دارت الدين تاني إلهي ووهيلين دونا أو يقولوا يسند دون تابون نبي يقولي مكان لقوه تاجي مركز يقولي صنعاء إلى حضر موت أيا يسعن دونان يجوا قفكوا إنه أرجع يجي ورابا كعش دمو يعني عدنا أنو كبغينين نما كمكة كبح كارك لا القطة مايو أيو نبي يقول حوش يجي يا دين تاني أنت يقولوا يستو أنا سنعي حضر موت نحس عن دونان يجوا أن عدنا كبغينين حوله هذين يجي كعش دمو يعني ولكنكم قوم تستعجلون بنقول وحاستين دقدق دقية دقدق وامل اسكاتور هذا هو حبر السنة مكان هف كسينا يا وامل اسكاتور تاسو حبس سماين مايش لكن waxay u baahan tahay dadku inay tooda dhistaan saxaabadii jabtay lama odhanin Khalid ba xariif ahaay intuu xagga dambe idin ka maray idin jabiyay ee waxa lagu yiri qul huwa min indi anfusikum tala xumadu idinka timi waa ilaahay ishkaladu idinka timi waligeed ba cadow iyo dad sayadunida waa jireen dad la yiri cadawgiina la xaqi doonaa idinku marka la mariyo idinku rooraya soo galana ma jirto dunidu tadaafuc asbay abadkeed ba ku jirtay laakiin dadkii dhisma Soomaalida maanta joogta waxay dhaahdaan gaala la inagu itixaabay gaala caynkano Ethiopia kan samaysayo Kenya kan samayso qolad joogta maxaa la yiraahdaa xeebta xamarba wadankeena maamusho caynkano warda ninkii tashakari waayo waa loo taliyaade dunidu waa caynka carruurtu ma tashan karto waa loo taliyaa bini'aadamka wixii tashakari waayo waa loo taliyaa cidu talin karta u timaada mashkiladu waa inaga ma hayaga iyagu waa nin dantiisa raacanaya lama yiraahdo niyo axmaq baad tahay maxaa dantaada u daba gashay
tiisuu ilaashanaya waa nin rageed oo tiisa ilaashanaya cidda doqmo ahi waa iyo waa innaga adaa taagan tuulada nagu xigta ha nagu soo durkina waa ka soo adhigiinu uu soo dhaafay halkii uu daaqi jiray sanadihii hore ayaa taagantay inaad duni kale wax ka qabato iyo dad kale inaad wax la qabsato daaye tuulaba tan ku xigtay adhiga ka ilaashanaysaa way leedahay halkaa reerkiinu ma degi jirine waa ka soo tallowdeen xuduuddii oo goormaad reeg iska celin marka ciddaad iskaba ilaalinaysa hadduu walaalkaa yahay iyo kii aad dad bay isugu dhoweydeen yaad iska celin kartaa markaa soomaaliya cidima jebinay iyadaa isjebisay xaqiiqadu waa kaa muslim cidima jebinay isagaa isjebiyey isagu markuu istumay ayaa la bakti wareemay markay dadka nool ahaayeen dunida dad bay ka ahaayeen tirsan oo aan cidina soo hunguraynin haddii la hungureeyana wax iska dhiciya waa dhici jirtay dagaal in maalin laga badiyo laakiin iyana berritay ka badin jireen dadku saasuu isu riixriixayay laakiin waanu iska fadhaynaa dunidayna soo gaadha oo dawlad noo sameeya oo duniday kaalay oo dad naga dhiga wax nin weyni ku hadlaba maaha yani wax nin weyni ku hadlo intuu meel istaago ma aha adduunow soo cararoo wax noo qabta soomaalida arkaysa markay soo leeyahay carab iga daawa nimanka halkaa ina dhigay oo iyaba meel kula mid ay jiifaane maxay ku dhigaan kuma dhaafaane kaa taageersanaysaa kuma dhaamo haddaad adigu wax dhaanta aad ahayd inaad keento waxaan markaa uga dan leeyahay ayuha alaxiba qur-aankii oo cusub oo aan waxba iska bedelin baa ina dhex yaalla sunnadii nebiga oo la hufay oo aan waxba iska bedelin baa dhexdeenna taalla taariikhdii dunida mid muslim iyo mid gaaleed boo la hayo ayaa taaliya tajaaribtii bini aadamka taariikh bay muslimiintu leeyihiin asumuud fi alxaalaati asacba qoraayo badan oo reer galbeeda waxay leeyihiin dadkani waa laabud inay soo noqdaan laakiin dib baa loo dhigi karaa rag waa ishayaaye waa la joojin karaa inagu waxaan leenahay ilaahay wuxuu yidhi isagoo calaa lisaani nabiyullaahi ibraahim calaa lisaani nabiyullaahi yacquub innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun ilaahay naxariistiisa kama quustaan dadka gaaloobay mooyaane muslimku quusba ma yaqaano cumar almukhtaar baa laga hayaa kelmada ah naxnu laa nastaslim ya cumar almukhtaarkii talyaaniga ay isku hayeen libiya ayaa wuxuu yidhi annagu isma dhiibno ama waanu guulaysanaa ama waanu dhimannaa buu yidhi yani wuxuu tilmaamayaa noloshu isdhiibka inaanay aqoonin haddaba alislaamu laa maxaalata qaadim waa soo socda wa fardun calayna inaynu camal samayno qul icmaluu wasayara allahu camalakum warasuuluhu walmu'minuun waxaa layna yidhi war camal sameeya shaqo qabta alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintuba way arki doonaan waxaa qabataane laakiin laynama odhan qul naamuu wasayansurukum allahu meel lakuma taallo seexda ilaahay baa idin guulaynaya meel ay ku qorantay ma jirto marka kelmaddaydu waxay ku koobantahay laba qodob oo qudha mid waxa weeyaan diintani way soo noqonaysaa haddii aqoonta bini aadam lagu eegana waa faafaysa waa diinta ugu faafis badan maanta ee dunida ka jirta waana soo noqon doontaa biidni illaahi tacaala laakiin waxa isweydiinta leh adigu safka ma ku biiraysaa kicinaya soo celinaya mise daawadayaasha qaybta maxaa la yidhaahdaa daawadayaasha mustamiciin alkiraam good audience-kaad ka mid noqon doontaa dadka daawanaya dunida sida wax uga dhacayaan ma kuwaasaad ka mid tahay mise kuwa diintooda iyo dadnimadooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba u shaqaynaya wax soo celinaya ayaad ka mid noqonaysaa idan adigu ilaahay waxba kaagama baahna laakiin adaa lagu itixaamaya lagu eegaya waana lagu sheegay haddaad jidka fiican qaadana in lagu guulayn doono kalluunsan haddaad qaadana in lagu baadiyayn doono aan waxba ka heli doonin marka waxaan ku koobayaa masaladan wax badan baynu ka odhan karnaa laakiin hadalka badani waxba ma taro waxay ku kooban tahay
diintani way soo noqonaysaaye adigu kii wax ku darsanayay ma tahay mise ma tihin وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين